ururka horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta dhalinyarada ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ayaa munaasabad ku qabteen sanad guurada labaad ee aasaaska ururkaasi. Waxa halkaasi ka hadlay hoggaanka ururkaasi oo ka sheekeeyay wixii qabsoomay iyo wixii qorsheysan. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay doomiyaha ururkaasi Ceelay Ibrahim Dugsiye iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi iyo qaar ka mid ah guddiga ururkaasi ayaa mid u sharaxay hawshii adkeed ee sanadkii tagay 2017 ka qabteen magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa aad baa mahadsantahay ayaan la kulankii maanta adligi laftiga nagala soo qayb gashay wuxuu ku saabsanaa kulan isbarasho ay wadaagayeen guddiga cusub ee dhalinyarada soo dooratay iyo guddigii hore sidoo kale xubnaha cusub ee ururka iyo xubnihii hore wuxuu kulan isbarasho ah kulan laga wada munaaqashoonayay sanadkii la soo dhaafay wixii qabsoomay waxa noo qabsoomin kulan laga munaaqashoonayay waxa soo socda inkastoo toobagiyada qaarkood dib loo dhigtay hase ahaatee inta ugu weyn waxay ahayd maanta isku nimaadnay isbarasho waxay ahayd xog wareysasho waxay ahayd ilaa idinkii hadduu leeyahay iska warhayn iyo xaaladda guud in la isla socodsiiyo marka kulanka iyaga maanta qabanay intiisa ugu badan intaas u daarnaa yaala badan baa anaka iyo guddiga anaka iyo xubnaha isla soo qaadnay kamid yihiin waxyaalaha noo qorshaysan sanadka 18 iyo dabcan waxyaalo badan aan rabno in aan anagu ahaan guddi ahaan aan sameeyno 18 kulamo dambe in aan anagu dib u qabsanay anaka iyo xubnaheenu waa yalla mutakar TV-ga caalamiga Universal magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.